Bismillahirrahmanirrahiim waxaan u wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta Naafic Show qodobada qaybtan aan idinkuga haynana waxaa kamid ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay isbahaysi cusub sargaal hore oo ka tirsan CIA-da Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday xilliga la weerari karo Iran oo tijaabo cusub oo gantaal ku sameynayso marinka Hormuz kaas oo ay ugu magac dareen jarnaalkii Mareykanka uu dilay 2020 ee Qasem Soleimani. Pakistan oo duqeymo diyaaradeed ka fulisay gudaha Afghanistan qodobo kale ayaa raaci doona. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa mar kale loo doortay xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee shaqaalaha taa oo sii dheereynaysa 15 sano uu hogaaminayay xisbiga. Kim waxa uu noqday hogaamiyaha ugu sarreeya ee Kuuriyada Waqooyi tan iyo markii uu geeriyooday aabihii Kim Jong Il sanadkii 2011. sanadkii 2019 baarlamaanka dalkaas waxa uu ansixiyay isbedel dastuur oo awoodda Kim ka dhigaya mid buuxda oo aan la kala qaybin karin isaga oo si rasmi ah loogu aqoonsaday madaxa qaranka. Kim Jong Un isaga oo kaligii taliye aan cidna ka daba hadli karin oo awoodda oo dhan u aruursan tahay haddana waxa uu ku ixtiraamay shacabka Kuuriyada Waqooyi inuusan soo bandhigin khaladaadkii dhacay iyo 5 sano ee hore iyo istiraatiijiyada uu 5 sano ee soo socota ku hogaaminaya isagoo kaliya aan sheegin waxa uu qaban doono ee waxa uu soo bandhigay sida loo qaban doono dhaqaalaha lagu fulinayo ballanqaadkiisa sida loo soo saarayo dhaqaalaha iyo sharaxaad la xiriirta qorshihiisa hogaamineed. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ku jiray furitaanka shirka golaha wasiirada Israa'iil waxa uu yiri aragtida aan qabo waxa aan ku dhisi doonaa nidaam dhameystiran oo isbahaysi oo isku keenaya xulafada Mediterranean-ka bariga dhexe iyo Afrika oo ay ku jiraan Hindiya, Carabta, Greek iyo Qibros kuwaas oo arkaya xaqiiqda sida ay tahay iyo sida ay uga hortagaan isbahaysiga xag jirka ha ahaato midda Shiicada xag jirka ah ama midda Sunniga xag jirka ah ee hadda sameysmaya. Kale waxaa la qorsheynayaa in Arbacada uu ra'iisul wasaaraha Hindiya booqasho ku tagi doono Israa'iil halka uu kula kulmi doono Netanyahu iyadoo la filayo in uu la saxiixdo heshiisyo militari iyo kuwa tiknoolajiyad xilli ay Hindiya dhawaan heshiis difaac la gashay dalalka bariga dhexe oo lala xiriirinayo Israa'iil. waxaa la fahamsan yahay in qaabka iskaashi uu qayb ka yahay xulafada uu Netanyahu ka hadlayo. sargaal hore oo ka tirsanaa CIA-da Mareykanka John Kiriakou ayaa shalay u sheegay warbaahinta in isagoo xiganaya ilo ku sugan aqalka cad in Mareykanka uu go'aansaday in uu weerar ku qaado Iran. sida uu sheegay weerarkaas waxaa la fulin doonaa Isniinta ama Talaadada. waxaa kale uu soo bandhigay xogta la xiriirta sida uu gudaha aqalka cad la isugu khilaafsan yahay weerar lagu qaado Iran isaga oo markaa tilmaamay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance iyo agaasimaha sirdoonka Mareykanka ay ka soo horjeedaan weerar halka xogayaha arrimaha dibadda Marco Rubio xogayaha dagaalka iyo taliska sare ee ciidanka Mareykanka ay taageersan yihiin in weerar lagu qaado Iran. Telefishinka Ruushka ee RT ayaa baahiyay inay Iran ku sameysay marinbiyoodka Hormuz tijaabo gantaal oo cusub oo nooca ridada dheer ah oo ku xiran markab dagaal oo cusub kaas oo loo bixiyay Soleimani Glass oo loogu magac daray generaalkii Qasem Soleimani oo la dilay 2020 amar uu bixiyay madaxweyne Trump iyadoo warbixintu sheegtay in gantaalka cusub uu awood u leeyahay in iskiis uu weeraro diyaaradaha dagaalka marka uu aqoonsado inay yihiin diyaarado cadow ah oo isku diyaarinayo weerar. Pakistan ayaa duqeymo diyaaradeed ka fulisay gudaha Afghanistan iyadoo weeraradan ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen 10 qof oo lagu sheegay in looga jawaabayo qaraxyo ismiidaaminta iyo weeraro ka dhacay gudaha Pakistan oo lagu sheegay inay amreen xubno ku sugan gudaha Afghanistan iyadoo kooxda Taliban Pakistan sida ay warisay Reuters. wasaaradda difaaca Afghanistan ayaa duqeymahan cambaareysay waxa ayna tilmaantay xadgudub cad oo ka dhan ah madaxbannaanida qaranka. waxa ayna sidoo kale sheegtay in jawaab ku habboon oo miisaan leh laga bixin doono xilliga ku habboon.